Haayada soos ayaa agab caafimad waxa ay kuwareejisey gudiga kahortaga covid19 ee Somaliland sidoo warkaan ay ku soo diray Xamsad Dabaare. Haayada soos ayaa agab kuwareejisey gudiga kahortaga xanuunka neefabaarka ee covid19 ee heer qaran waxaana ugu horeyntii uga warbixiyay madaxa mashaariicda gargaarka degdega ee Idris Cabdi Xirsi agabkan oo kala ah mashiinka neeftas iyo bukaanada xaaladda adag ku jira waxaana uu yiri xanuunka covid19 agabka waxa kamid ah 25 portable oxygen concentrators waxaan la yiraahdo oo runtii wadanka aan laga helin laakiin dibadda aanu ka keenay qaybna ka qaadan doona waxna ka tari doona xanuunka la tacaalaya covid19 waliba dadka xanuunka la tacaalaya ee oxygentu ay ka yaraato waxa kale oo qalabka kamid ah qalabkan lagu cabiro oxygenta ee qofku inuu u baahan yahay kale lagu kala ogaado waxa kale oo kamid ah 167 bogos oo qalabkan lagu xidho afka iyo sanka oo N95 isugu jira surgical mask waxa kale oo kamid ah qalabkan xumada lagu cabiro thermometerka la yiraahdo amba temperature test oo isna 110 haba hay'adda soos waxa kale oo ay marka inta laga tago ay ka qayb qaadan doontaa call center kan wasaaradda caafimaadka ku yaalay covid19 call center waxaanu kaga qayb qaadan doonaa insha Allah 3 qof oo psychosocial expert oo aanu insha Allah mushaarkooga bixin doono iyaguna ay ka qayb qaadan doono marka halka gali doona maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sultan iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland oo ugu hambaliyay agabkan ay ku wareejiyeen baan ugu mahadnaqaynaa soos waxyaabaha badan ee ay ka qabato dalkeena waxaan u leenahay tan caafimaadka ka qayb qaadatayna aad baa ugu mahadsantihiin waa wixii loo baahnaa iyo xilligii loo baahnaaba waa keenteen kuna ahaantii dadkeenu in badan waxay u haysataa markii xayiraadii la fududeeyay inuu covid19kii dhamaaday ma dhamaan saa la socotaan dagaad wasiirka ka warami doona waxaan u jeedaa agaasimaha guud baa ka warami doona dhacdooyinka maalin walba inay cidi jirto iyo xaaladda ee la yiraahdo oxygen concentratorska agabka kale ee afxirka ee lagaga hortago ama ka difaaca dadka ee transmissionka xanuunkan ama xanuunkan faafitaankiisa ee agabka lagu eega xumadda oo lagu ogaado xumadda qofka iyo agabka lagu ogaado heerka oxygenta qofku ay marayso ama qofka oxygen u baahan iyo qofka aan u baahnayn run ahaantii agabkan oo ah agab aad u muhiim ah oo ay ku jiraan 25 mishiin oo ah kuwa qofka oxygenta siiya hay'adda inoo keentay soos aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waxaanu agabkani wax weyn ka tarayaa hawlihii ay wasaaradda horumarinta caafimaadku kula tacaalaysay xanuunkan la yiraahdo covid19 ugu dambeyntiina wasiirka hadinta iyo waqafta Somaliland Sheekh Khalil ahna xubin kamid ah gudida kahortaga xanuunka neefabaarka ee covid19 ayaa dhankiisa sheegay agabkan iyo baahida loo qabo waxaanu uga mahad celiyay hay'adda soos hadalkayga kasakooy inaan mahadnaqa u gudbiyo hay'adda soos ee xanaanada carruurta ee dhalinyarada isla markaana wax qabadkeeda laga soo sheekeeyay sida ay u taageerto wasaaradda horumarinta caafimaadka inta ku noqon maayo waa mahadsan yihiin laakiin waxaan kalmad isku taagayay qolaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu taxadar is ilaaliya khudu hidrakum digtoonidina qaata oo waxa dhibaya iska ilaaliya ayuu ilaahayna yiri subxaanahu wa ta'aala waxa ka waraysan waa xanuunkan weyn oo yahay xanuun caalamka oo dhan saameeyay islaam iyo gaal iyo qafaan diin balahayn iyo cadaan iyo madow rag iyo dumar caruur iyo ciroole inta uu ku dhacaya waanu saameynaya waanu saameyn karaa waana xikmad ilaahay uga jeedo inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala doomiisa ku baro awoodiisa haddii alla yiraahdo Xamsad Dabaare RTN TV Hargeysa.